ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم كسر دواada tilaabka Sarbiyaan. Waxaan la qeysanayaa casho yar oo fudud rooti iyo maxaa la yiraahdaa sausage aan dhexda ka gelinayo. Hadda waxaan bilaabaa insha Allah rootiga qaabka u qasan lahaa. Waxaan ku shubtay hal qaado oo sonkor iyo hal qaado oo qamiir biyo yar aan ku soo shubtay. Baar yar aan dhigayaa hadii Ilaahay yiraahdo inay in yar ii soo kacdo qamiirka ama leebitada. Markaas kadib waxaan ku darsanayaa insha Allah burkii la socon insha Allah. Hadda waxaan ku soo darsanayaa waxa waaye laba xabo oo ukun aan ku soo darsanaa hadii Ilaahay yiraahdo. Marka ukunta ama laba ama ka badan waa ku darsan kartaa ama iska dhaafi kartaa. Hadda laba aan ku soo darsanaa insha Allah. Waxaan ku soo darsanayaa butter koob halfkiisa oo aan soo dhalaaliyay, hal koob oo caano caadiye aan ku soo darsanaa wax yar qandac kadib inta aan mataqaanaa isku soo qasaa waxaan ku soo darsanayaa in yar qaadada ugu yar wax yar adiga cusbada saa u jeceshahay ama milix insha Allah baan ku soo darsanayaa. Kadib saana intaan isugu soo walaaqaa insha Allah waxa aan sameynayo waa rooti. Marka waa kana hadda waxaan ku soo darsanayaa burka iyo liquidka ama waxyaabaha qoyan ee meesha ugu jiraayna adiga ayaa garanaa qaabka ay isku leekaysiisanaysay. Marka burka tartiib baa ugu soo darsanaysaa insha Allah ilaa meeshii aad mataqaanaa burka rabtay. Kadib gacantaan ku qasayaa sidaan ayaan gacanta ugu qasayaa waan daboolaa waan dhigaa waan soo khamiirinayaa ama soo kacay. Waa kana waa ku soo laaftay 45 daqiiqo kadib markaan qasay meelaan dhigay. Hadda waxaan bilaabaa qaabkii aan u diyaarinaa insha Allah. Halkan waxaan ku haystaa waxa la yiraahdaa sausage ama chicken ama digaag saan loo sameeyay oo hilibkaas dhuudhuuban laga dhigay. Marka hilibkaana waxaan rabaa inaan mataqaanaa aan geliyo dhexda ka geliyo oo ku dubo rootiga saa aragtaan waa soo jarjaranayaa. Kadibna sausage-kaas ama digaaga hilibka yar ee dhuudhuuban ee qaabkaas loo sameeyay ayaan waxaan ka gelinayaa dhexda hadii Ilaahay yiraahdo. Waa shay loo mataqaanaa aad iyo aad u fudud ilmahan ay jecel yihiin. Waa kana saana dhexe rootiga markaad xogaa soo qaadanaysaa. Markaa sausage ku kala noocyo badan qaar yar inta ka yar jira iyo midka waaweyn. Midkii markaa adigu markaa aad haysatid ayaad waxa deeqsiisanaysaa daqiiqda ama burka aad mataqaanaa soo goosanaysid abirka. Marka saana dhaha meesha waxaan ku shubanayaa wax yar oo saliid kadib insha Allah saana u dheereena hadii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan soo dhexda ka soo gelinayaa sausage-kii diyaarkii ahaa. Sausage-kana biyo yar baan ku soo kariyay oo waa diyaar karis badan ma u baahno. Marka saan igu karsan yahay. Marka saana gacantaada ku dhaysaa waxaan rabaa inay mataqaanaa isleeg tahay oo mataqaanaa balaarkeeda iyo dhuufkeeda isleeg yahay. Kadib saana dhehaysaa xabad sausage soo qaadanay saasa ugu wareejinaysaa insha Allah. Sausage-ka dhan ama hilibka dhan waa ku qarinaysaa. Saasa intii mataqaanaa burkii ku go'naa baasa ugu wada xiraysaa gabagiisa ilaa iyo meesha u hooseysa u dambaysa. Hadda ku dheeraadana waa iska jaray. Kadib saasa tartiib u dhahe meesha ugu talagashay baasa haraysaa. Waa kaasa. waa wax yar oo fudud oo easy waqti badan ka qaadanaynin. Hadda saana ku wadaya insha Allah gacanta wax yar ku dhadhaxee adiga markaa burka kala bixinaysa meesha isqiyaas isku leekaysiisid baa laga rabaa. Marka waa rooti yar oo aad iyo aad u fudud casho yar oo aad u fudud waaye ilmahan ay jecel yihiin maasha Allah tabaarakallah. Ilaa inta haysan si anaga noo siyaadi markaa ka faa'iideysan insha Allah. Waa wax yar oo aad iyo aad u fudud aan dhib badan lahayn. Saana ku wadaya insha Allah. Markaan dibana waa inuu tuso qaabka ku soo baxo hadii Ilaahay yiraahdo. Kasaana aniga aan cashada ilmihi ugu diyaariyay. Waa kaasa kadaala saan ugu soo wada marinaysaa dhag meesha u dambaysa saa ugu xire
saasaa wax yar ugu waxayne abaara saa ugu waxaynaysaa. adiga waxaa lagaa rabaa inaa mataqaanaa aad chicken-kaas ama digaagaas aad ku qarisid oo aad si fiican mataqaanaa aad ugu qarisid haddii ilaahay yiraahdo. marka saanaa kusoo dhameynaa insha Allah. xabadii u dambeysa idin tusaaya kadib markii aan soo dubo baa isku soo noqoneynaa sidii uu soo noqdo. intaana saddexdaana idin tusaayay waxaan u maleynaa waa ka bogateen, waa aragteen qaabkan wuxuu sameynayay, qaabkan sausage-kii rootiga isku dhex gelinayay. maasha Allah waa alaab yar maasha Allah tabaarakallah caadi ahayn khatar kaala iska arag waaye. maasha Allah tabaarakallah. marka saana inay ka tagaa saxankaas saara waa dhigaa waa isku soo noqoneynaa insha Allah. hadda waa soo dhigay cabaar adiga ilaa 15 daqiiqo cabaar dhigay kadib waxaa marinayaa ukun yar iyo aan yar isku soo qasay ayaan dusha saa uga marinayaa. wax yar soo kacay kadib waxaan gelinayaa ovenka. intuu ovenka igu jiro waxaan diyaarsanayaa soos loogu talagalay in lagu cuno laba cheese oo kala nooc ayaan maqliga kusoo shubtay. wax saliida hore kama horeynin, dabka unbaa wax yar u daaran yahay inuu wax yar dhalaan rabaa. kadib waxaan kusoo shubtay half koob caano normal caano caadi ayaan cheese-ka kusoo darsaday. waa laba cheese oo kala nooc kadib wax yar buu ii dhalaalayaa cheese-kana. waxaan ka dhigayaa soos lagu cuni doono haddii ilaahay yiraahdo. kadib waxaan cheese-kii ii dhalaalay diyaar u yahay. waxaan ku darsanaa haddii ilaahay yiraahdo mayonnaise. haddii aan rabina waa iska dhaafi kartaa laakiin xoogaa mayonnaise aan ku darsanaa insha Allah. wax kale ma ku daraay, waa cheese-kaas iyo caaniina isku dhaalay iyo mayonnaise. markaa soosaan ka dhigaya insha Allah lagu cuni doono rootigii aan ovenka geliyay ama foornada. markaa waa kaasaa cheese-kii ama sooskii saan quruxda badan ii noqday maasha Allah tabaarakallah. waa alaab yar waxaan ku dhahay cheese-ka aan caadi ahayn sidii ketchup-tii oo kale ilmaha ugu dib karaysanayaan. waa kana rootigiina waa kasoo bixiyay saana ii soo noqday buush jileec kaala iska aragan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah. waa kaasaa saan isagoo ayaa dukaamada lagu gadaa. marka maasha Allah tabaarakallah waaye. marka waa kana waa soo diyaariyay. hadda waxaan soo saartay rootigii iyo sooskii aan soo diyaariyay ee cheese-ka ka koobnaa. waa kana rootigiina saan quruxda badan oo noqday maasha Allah jileecna waa kaala iska aragan ku dhahay. saana loogu cunayaa marka cheese-kiina waa kaasaa maasha Allah. cheese ketchup wax laana wax ilmaha jecel yihiin baa ku siisanaysaa. marka cheese-ka haddaan saan ugu samaysadna waa kaala iska arag oo way ku saasaysidii ketchup-tii oo kale u cunayaan kuwa cheese-ka ku jecel. marka waa kaasaa cashadaas quruxda badan leh waa idin qaybsanayay oo aadka mataqaanaa maasha Allah adow idinkana waxaan jeclaa insha Allah inaan ka faa'iideysan doontiin ilmihiina aan uga faa'iideynaysiin haddii ilaahay yiraahdo. marka waa kaasaa anaga saan leh aan soo diyaarsanay. ilaahay adaan siino siyaadi intii aan haysanina sii. marka walaalahayga intaas idin la qaybsanay aad iyo aad mahadsantiin. please haddii aan ugu cusubtahay hadda noo imaatay subscribe-ka naga ilaawina la wadaag asxaabtaada, like iyo share comment-gana dhankiina waaye. assalaamu calaykum.